مسؤوليinta tiifiyada madaxa banaan ee Somaliland ayaa kulan harimo sharafeed u sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore waxaana ku wehelinayay agaasimaha TV-ga qaranka Somaliland Maxamed Xasan Cali Waji iyo maamulaha idaacadda Radio Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed iyo mas'uuliyiin ka socda tiifiyada madaxa banaan ee Somaliland munaasabada qada sharaftan oo ka dhacday Hotel Dollar ee magaalada Hargeysa waxa kulankan laga hadlayay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxaysa wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta madaxa banaan sidoo kale kulankan waxa laga hadlay sidii loo adkeyn lahaa wada shaqeynta ka dhaxaysa warbaahinta madaxa banaan iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland waxa halkaasi ka hadlay Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo iyo Kayse Axmed Digaale oo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta tiifiyada madaxa banaan la sharaftani waxay daarreed soo dhaweynta wasiirka maadaama warbaahintu ay badan tahay ururo badan ay leedahay teamkan iyo ururkan maxay ahaydeen tiifiyada oo inta fadhida ay tahay ownerski mulkiilayaashii iyo raggii taladu ka go'aysay oo waxa ay wasiirka isla gaaraan aan cidina ka daba gelinayn cidina ka daba hadlayn inay maanta kulmaan casuumadayn maanta u fidinay wasiirkuna naga aqbalay wasiir waa soo dhaweynaa nagamana aha casuumadan iyo maxay soo dhaweynta wasiirka inaanu wax ku xodxodanayno wada shaqeyn iyo qarannimada in la wada ilaashado ayay naga tahay annagu qarankan la shaqeynaa dawladdeedaan la shaqeynaa dalkeenu ilaashanayna waana ka ballanay horena uga soo ballannay wasiirkana ballanqaadka cad baanu u sidnaa waa mid aan ku soo dhaweynayno wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale warfaafinta ka socota maadaama wasiirka dhammaan hawsha wasaaradda loo magacaabay si aanu isbarasho la isku barto mas'uuliyiinta tiifiyada madaxa bannaan isla markaana loo wada shaqeeyo maadaama wasiir kasta oo yimaada wasaaradda xilliga yimaado aanu kulankan oo kala yeelano si ay isku bartaan una wada shaqeyno wasiir horta kulankan maanta ku sameeyay sidaas u daaran yahay ragana sida lagu sheegay waa mas'uuliyiintii tiifiyada madaxa bannaan ujeedadu waxa kale isbarasho isxogwaraysi wixii kale way noo dameyn doonaan agaasimaha telefishinka qaranka Somaliland Maxamed Xasan Cali Waji iyo maamulaha idaacadda Radio Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed ayaa sheegay in kulankani wax weyn ka tari doono xiriirka warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda warfaafinta sidii halkaasi looga sii wadi lahaa inta la daawanayso waxaan u sheegayaa warfaafin waa mid warfaafinta Somaliland waa mid kaliya haddii aad shalay maqlaysay waxoogaa yaroo xinifa waxa la yiri ilaahay doqon nagama dhigeen waxa la yiri doqoni hadii la ficiltamiyo la kala sigay moodaa warfaafintu doqon ma waanu ognay waxaanu sunnahay iyo waxaanu kala nahayba erayga warfaafin waa mid kaliya waxaanu u wada adeegaynaa naga dhaxeeyana waa qarankeena Somaliland bay naga dhaxaysa tulaalkeeda iyo samakasheegeeda iyo ceeb asturaadeeda intuba way naga dhaxaysaa qalinkeena afkeena kameradeenu intuba waynu ka xishoodaa wixii cadow ku farxo inuu ka sheegno dalkeena ta ugu horeysa maanta waranka ku cadowgeennana waa qadadeena wada qadaynayno in aan idinku hambaliyeeyo in mar hore loo baahnaa kaalinta maanta aad ku dhaqaaqdeen inaad mar hore ku dhaqaaqdaan ay ahayd isfahan la'aanta had iyo jeer warbaahinta iyo dawladda kala haysataana waxa weyn isfaham la'aan ku saabsan isu dhawaanshaan la'aanta inagoo bahdii media oo minister line aan idinahay in aydan nagu soo dhawaanin hadiya jeer oo noo aragtaan cadow ma aha inaad cadow aragtaan wasaaradda warfaafinta waa taad ka tirsantiin waa line ministerigeeni waa taad wax ku qarsanaysaan hadiya jeer waxaan jecelnahay oo wasiirku hormood noogu yahay inuu hadiya jeer anaga noogu khudbadeeya inaanan وحين warbaahinta madaxa warbaahinta dawladda aanu wasiirku wahayn kaligii wasiir ee uu yahay warbaahinta Somaliland oo dhan mid private iyo mid dawliyeeba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo kulankani tiifiyada madaxa bannaan ay soo agaasimeen isla markaasna harimo sharafeedka ugu sameeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta waxaana wasiirku ku dhiirigeliyay in halkaasi laga sii wada shaqeynta warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda warfaafinta ugu horeysa waxaan halkan ka cadeynaya xukuumadahan وأن ما أنت أنا وحكومة وكيل أجاهاي وزارة warfaafinta aniga iyo xukuumadda aniga iyo saxaafadda madaxa bannaan inaan wax cuqdada
iyo wax dhiba iyo wax aan maanta ka sheegaya wanaag mooye aanay jirin qolada saxaafadda madaxa bannaan waxaan leeyahay saxaafadda madaxa bannaan waynu isku soo dhawaanaynaa inaynu aada u wada shaqayno anigu cuqdad kama qabo saxaafadda marka waanu ogolahay dhaliisha laakiin dhaliishu ha noqoto mid constructivena ah runna ah cidaad isugu imaanaysaan markaa ma jirto wax badan oo aad sheegtaan oo constructive baa jira wax badan oo barnaamijyaa oo ummaddu idinka sugayso ayaa jira wax badan oo aad samayn kartaan oo dalka iyo dadku waxudana ummadda dan u ah baa jirta aniga qodhaydu wasaaradda waan isku dayaya wixii awood ah markaan raggayga la tashado ragga xirfadda la tashado in aan reform ku samayno qaabka warbaahinta dawladda idinka qudhiina waxaan idinka codsanaya in qayb weyn barnaamijyadii mujtamaca taabanaya ama waxbarashadu ka mid tahay caafimaadku ka mid yahay deegaanku ka mid yahay waxbaristu ka mid yahay in baa barnaamijyo taya leh oo dadkii wax kaga harayaan inaynu sii wada dayno dhan kastaba dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa sheegay in warbaahinta madaxa bannaan tiir weyn ka tahay jiritaanka qaranka jamhuuriyadda somalilan loona baahan yahay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo jiritaanka somalilan iyo sidii shacabka jamhuuriyadda somalilan wanaagga iyo hanuuninta ay dhinacooda ka qayb qaadan lahaayeen wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa wasaarad ahaan waanu idin difaaci karnaa laakiin difaaca aan idin difaaci karnaa waa markaad annagu waa markaynu inagu bolosi isku ognay inaan wariyo la xidhin wasaaradda warfaafinta la-aanteed laakiin waa inaynu inagu marka hore dee wax isla ognay waa inaynu inagu dee la yeelanaa agreement hoosaad wasaaraddaad leyn minister u tihiin wasaaraddu waxay u abuuran tahay inay saxaafadda xorta koriso hay-ado badan iyo dad badan baan hadda rabnaa inaan la xidhanno madaxweynuhu wuu amray wasiirka qorsheynta in saxaafadda la geliyo diplomatka wuu amray waa qayb baad ka tihiin privatekiina inaan goobta publica wax lagu siinayo iyo idinkuna aada xaq u leedihiin in laydinku siiyo waxaan rabnaa inaynu isku soo dhawaano ragga ownarska iyo ragga editorskaaba aynu isku soo dhawaano oo aynu wax wada yeelano barnaamijyada inaan idiin qorno oo aan covering letterka idiin saarno wixii diplomat wixii kale aynu ka wada shaqeyno wixii laydinla qaban karo aanu idinla qabanno waynu iskarabsanaynaa isdhibi mayno waxaynu noqonaynaa dad wax isu sheega dad iskarabsada dad wax wada wadaaga dad dalka wada dhisaya waa khadar maxamed maxamuud khadar quule telefishinka qaranka somalilan magaalada hargeysa